السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوادا عشرة تحنها Windows 10 maanta waxaan casharkan ku eegaynaa sida loo isticmaalo Windows Clipboard History oo markii aad wax guurinaysid oo wax dejinaysid waa copy iyo paste inuu computerkaaga xasuusto waxyaalaha kala duwan aad guurisay si markaas ka rabtid aad u dejisid ama u paste garaysid si aad taa kugu suurta gasho waa inaad horta marka hore Windows Clipboard History-ga on ka dhigtaa si aad u samaysid waxaad tagaysaa start waxaad tagaysaa settings waxaad tagaysaa system markaad tagtid waxaad tagaysaa clipboard waa meesha laga xukumo markaa wax guurinaysid markaa wuxuu ka kooban yahay saddex qaybood qaybtan hore oranaysa clipboard history markaa wax guurisid adoo isticmaalaya macnaha shortcut-ka keyboard-kaaga oo ah control C si aad u copy garaysid control C macnaheedu waxa weeye shortcut kala duwan isticmaali karaan laakiin ugu easy-san aad mar walba inaad xasuusnaatid muhiim tahay waa markaa wax copy garaynaysid si fudud control C hadda hal mar taabatid markaas wixii ku highlight garaysnaa ayaad guurisay markaa meesha rabtid inaad ku dejisid tagtidna waxaad taabanaysaa control V oo markaa macnaheedu yahay paste ama dejin markaad dhowr wax oo kala duwan control C ku samaysid oo guurisid si aad ka rabtid u xulatid markaad dejinaysid waxaad taabanaysaa meesha control ka taaban lahayd windowga loogada windowga calaamada macnaha windowga keyga uu ku sawiran yahay iyo waxaad isla taabanaysaa iyo V markaa wuxuu ku siinayaa dhowr option oo kala duwan wixii markaa history-ga ku jiray si aan idin tusato haddaan tago Excel oo kale kasoo qaad dhowr cell oo kala duwan waxaan hadda taabanayaa control C si aan ku copy gareeyo control C haddana labaan copy gareeyay 3 4 5 marka clipboard history-ga waxay xasuusanaysaa ilaa 25 waxyaalood oo kala duwan aad guurisay size-ka ugu badanna waxa weeye waa 4 megabyte marka wixii 4 megabyte ka badan ama sawir ha ahaado ama qoraal ha ahaado ma xasuusanayso marka haddaan hadda control V haddaan taabto waxaan paste gareynayaa kii ugu dambeeyay oo hadda aan copy gareeyay kuwii hore dhan ma xasuusanayso laakiin haddaan taabto window key V option wuxuu siinayaa wixii aan soo guuriyo dhan inaan paste gareeyo kaan rabo marka waa waxyaalaha clipboard history waa waxyaalaha aan hore u soo guuriyo dhan marka kii aan rabo sidaa u aragtaan hadda kulli cells-kan waxa ku jiro dhan waan guuriyay halkaan ka muuqdaan hore waxaan u guuriyay xataa ku jira ilaa 25 waxyaalood xataa haddaan computerka demiyo daaro clipboard history-ga sidaas ayuu igu joogayaa oo markaan rabo ayaan dejin karaa marka waa wax aad macnaha isticmaalkiisa wanaagsan yahay qaybtan hoose oranaysa sync across devices macnaheedu waxa weeye wixii devices-kaaga ama phone ha ahaado ama computer ha ahaado oo account-kaaga Microsoft log in-kiisa ku samaysay clipboard history-gaas ama waxyaalahaas ku jira taariikhda clipboard-ka waad ku paste garayn kartaa any device buu markaas available ka noqon yahay uu available ka yahay macnaheedu waxay ku paste garayn kartaa ama ku dejin kartaa oo kulligood device-yadooda dhan history-gaas wuu ku jirayaa waa haddaad taabatid aad on ka dhigtid daadid sync across devices markaasna aad tirahdid automatically sync text that I copy marka waxaa samayn kartaa kan haddaa xulatidna markaa macnaheeda waxa weeye never automatically sync text that I copy macnaha devices-ka kan keliya markaad aad isticmaalaysid ayuu available ka ahaanayaa device-yada kale ama computerada kale ama telefoonkaaga waxyaalaha aad guurisay kama banaanaanayo si aad u dejisid ama available kama ahaanayo si aad markaas u paste garaysid meeshaan oranaysa get an app to sync your clipboard items to your phone haddii aad telefoon oo Android oo kale haysatid ama iOS Apple waxaa samayn kartaa linkigaas aad taaban kartaa application-kan hore casharka hore ugu soo sheegnay oo Microsoft Companion ama Microsoft Launcher
ayaad soo dejin kartaa markaasi ay suurtagal kuugu noqoto waxyaalaha aad guurisay inay markaa telefoonkaaga xataa Android aad ugu dejin kadib oo linkigaasaa taabanaysaa telefoonkaaga ku qoraysaa applicationka soo download gareynaysaa telefoonkaaga marka saas ayaa taasna u isticmaali kartaa haddaan ku noqono halka hadda off-aan ka dhigay never automatically sync a text that I copy markaas si automatiga device-yada dhan taxigayga uguma copy garaynayo oo marka haddaan halkaan tago aan idhaahdo window key V meeshaan aan taabto saddexda calaamadood halkaan option wuxuu igu siinayaa inaan markaas sync idhaahdo haddaan rabo tan keliya inaan device-yada kale aan ku paste garayo kasoo qaado dhowr device oo kala duwan aan isticmaalayaa phone desktop laptop waxbaan guuriyey waxaasaan rabaa inaan ku paste garayo meel kale oo computer kale ama phone kale oo macnaha aniga aan leeyahay sync yaan odhanayaa computerkaas kale aan tegayaa waxaan taabanayaa window key P markaasaan ku paste garaynayaa waxaas markaas meesha available ka noqonaya casharkan dib uga hadlaynaa waxyaalahan oo across deviceska security ama dhanka amniga xogaa cilad ayaa ka jira mararka qaarkood marka casharka security aan uga hadli doonaa kaasna explanation ku samayn doonaa haddii lahaydmo meeshaan hore oo odhanaysa ugu hooseysa clipboard history macnaha nadiifi ama tirtir waxa clipboard history ku jira haddaad taabatid macnaha wixii clipboardka ku jiray dhan ayuu markaas nadiifinayaa oo tirtiraya marka haddaan dib ugu noqdo aan taabto window key V and clipboard history is empty way maran tahay marka saas ayaa ayadana ugu clear garayn kartaa okay casharka intaasaan ku joojinayna insha Allah aan kaga hadalnay taariikhda clipboardka ama historyga ama waxyaalaha aad guurisay oo ilaa 25 si aad ugu dejin kadib meel kale oo markaa meesha ka guurisay aan ahayn marka intaasaan kusoo koobaya casharka insha Allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh